هذيك أو أنا شقينا أي العكتي أي العكتنا إيمان الساعة هذيك ما شقينا يزيد لكن محاضرة كوي مرايا وأيوة وحشقينا يددال الأخرى money is the truth. One is called a salary and the other one is called residual income. Salary means when you are an employee, when you are a staff, you are being paid by a salary, or maybe by a contract, or maybe you are given by a wages like that. That's called, it's a kind of income. If you don't work, you will not get the salary. You have to stay at the job, at work every day, then you will get the salary when the month goes end, or you will get the wages by day or by quarterly like that. That's called a salary or wages. And there is another money which is called the passive income or residual income. That money, it comes from maybe you have built an asset. Like this building, you build this building, then you rent it, then people are giving you the rent, and then you are getting the money every month without working. Because of your previous effort is working. That money is called a leverage. That's the two one we have. لعبتوا؟ dadkuna waxay u qaybsamaan laba dadkuna waxay u qaybsamaan laba nooc dadku waxay u qaybsamaan dad lacag darteed ku shaqeeya subax kasta way ordayaan si ay lacag u helaan subax kasta way ordayaan si ay lacag u helaan dadkaas maxaa la yidhahdaa lacag darteed buu shaqeeya waneegdoona waxay yihiin waxaa kaloo jira dad ama lacagtu ama dad ay u shaqeeyaan ama dad ama lacagba ama lacag ama dadba u shaqeynaya dadku waa labada nooc waa qof lacag darteed u shaqeeya oo subax kasta si lacag helo u shaqeeya iyo qof lacagta laftirkeeda u shaqeynayso ama dad ay u shaqeynayaan dadka lacag darteed u shaqeeya waa ayo waxaa weeyaan shaqaalaha iyo kuwa naftooda shaqaaleysiiya dadka u shaqeeya dadka naftooda dadka lacagta ama dadka u shaqeeyana waa hantiilayaasha iyo maaliyayaasha lacagta dadku haddaad lacag darteed u shaqeynaysid inaad dhaqaalaha xorriyad ka gaadhid way adag tahay. You know what I'm telling you is money, people are told. Some people, they work for money. Every single day they wake up in the morning and they go to work so as they can earn some money. And there is another people, that people, money works for them or people works for them because of they build an asset or they have built a system. And remember that people who are every day, they wake up and they want to earn money, every day. And when the month ends, they get the money, and they start working for money. When the month goes ending, they start working for money. When the month goes ending, they again start working for money. That people, some people are like that. And other people, money itself is working for them. Or other people other people are working for them because of they have a system, or they have an organization, or they have maybe some other thing. Let's call it the people are that way. So it is very hard for you to reach a financial stability by only working for money. haddaba way adag tahay inaad dhaqaalo joogto ah oo wanaagsan oo go-aayo noloshaada oo dhan aad heshiin adigoo u shaqaynaya lacag darteed. There are 4 ways to generate an income. lacagta markii la helayo 4 wadiiqo un baa lagu helaa. lacagta markii la helayo 4 wado un baa lagu helaa. 4 wadiiqo way weeyaan number 1 employee inaad noqotid shaqaale. number 2 inaad noqotid employee. number 2 inaad noqotid aniga la socdo employee inaad noqotid shaqaale. number 2 inaad noqotid self employee qof naftiisa shaqaaleysiin. 3 inaad noqotid qof hantiilaha ama ganacsadaha. iyo 4 inaad noqotid maalgeliye. 4 wado un baa lacagta sideed lagu helaa. haddaad maanta shaqaale tahay shaqo waa haysataa laakiin lacag darteed baad u shaqeynaysa. waad ordaysaa lacag weeshi dadka shaqaalihii waktigooda ayay lacag ku bedeshaan. haddaad maalin kasta ama isbuuc kasta ama bil kasta aad shaqada joogi weydid kadibna lacag joogta lacag ma qaadanaysa.
dadka qaarna waa kuwa naftooda shaqaaleysiyo dadka naftooda shaqaaleysiiyana sidaas oo kale waqtigooda ayay lacag ku bedeshaan haddaysan subax kasta dukaanka furin ama dadka naftooda shaqaaleysiyo waxaa kamid ah dadka profession ku shaqeeya sida dhakhtarada injineerada looyarada kuwaasoo kalena naftooda ayay shaqaaleysiiyeen oo dadka noocaasan sidoo kale iyaguna shaqada iyagaa iska leh laakiin shaqada iyagaa iska leh oo shaqada iyagaa iska leh laakiin waqtigooda وقاي حضوني كده اختك عبد الله يركعها وصبح كاستقف نقول وكان بعد ما قام وقت يسوق على المكان وانا صبح كاستقف لها وكان كبير هذيك اللي عندنا بذكر واحد وش قيم مكان لعقلتي There are 4 ways to generate an income. There are 4 ways to generate an income. The first one is called E, which is employer. These people they work for money. They exchange or they trade their time with money. If they don't stay at the work 6 up to 8 hours per day, they will not get any money by the end of the month. And they are staying at the work always. And they don't have a time freedom and they also don't get a financial freedom. These people, they are working for money every day to go and when the month comes, they earn. And there are also other people which are called self-employed. That people also, they work for money. They are like those who have a small business. Like shops, and the people who are the profession, like doctors, like engineers. If the doctor don't meet a patient every single day and don't say, please, next person, he will never get any money. And he should have to stay at the hospital, at the clinic every single day. Because if he's trading, he's exchanging his time with money. These people, they work for money. So it is very hard to reach financial stability by working for money. waxaa kaloo jirta laba wado oo kale lacagta lagu helo wadada kale lagu helo waxaa loo yaqaanaa business owner ama hantiile dadka hantiilayaasha waa maxay iyagu system bay dhistaan like Facebook, like Google, like Alibaba, like this building aan joogno, like Safaricom. That people like Dahabshiil waxay buldhigayeen system ama hanti systemkii ama hantida ay dhiseen ayaa shaqaynaya oo lacag soo saaraya si aan lacagteeda u biiriyaan to increase my income. What am I going to do? wayna shaqo kala raadiyaan وسديت ساعات كله سديت ساعات كله ما كان شقيم حبيش يسوي ليزه صدق بقول رئيس صدق بقول ضم هل اللي هذا رغينا صدق بقول كله قاعد محاز راي سديت ساعات كله شقيم يمشي ساعات ما كان شقيم يا 16 بلس 8 24 hours 24 hours واحد بدل ما شقيم كره وقت انت كبدل اللي هي اللي نسي مجرو خوف غبي 3000 ساعات شقيم كره مجرو ما يمجرو ليه توصل عضو والله شقيم اوكي maxaa xalaado lacagtaadu 900 ma dhaafaysaa ma dhaafi kartaa 900 ma dhaafayso lacagtaada si aad u biiriso waxaad u baahan tahay saacadaha shaqaynaysa inaad biiriso saacadaha shaqaynaysa aad u biirinaysaa for example look next for example in network marketing our essence our people network marketing hadaba hantideena waa maxay waa dadka so from hadii master A uu haysto 10 kun oo qof oo teamkiisa ah it means hadii teamkiisu uu qofkiiba 8 saacadood shaqeeyo sanadka oo dhan 10 qof uu haysto hadii ay sanadka oo dhan 8 saacadood shaqeeyaan sanadka oo dhan ma maalintii ma bishii sanadka oo dhan hadii 8 saacadood shaqeeyaan imisa saacadood bay teamkiisu sanadkii shaqeeyaan ay shaqeeyaan 8 kun oo saacadood it means marka teamkiisu 8 kun oo saacadood shaqeeyaan maxay ka dhigantay isaguna muxuu shaqeeyay سيديت كل أصع عدد بشقيه. هدي تيم كان إلى تيم كان هذا إسكال سوا. هدي تيم كان سيديت كل أصع عدد أي شقيه. أنت صع عدد بشقيه. ديمو النقاط. من كي صاحبك وحوش شقيني إذا بعطني أكثر صع عدد ما هلك كستا مركز إن سنة كيلو كل فطور ما حين قلنا سيديت كنت ضرب كل يوم. لحدا صع عدد سنة زمان بيسي. back next. هذا سيدات ساعات ولو قيدي سيدات كون تضرب كل 11 ساعات امسيس ديري عايز ديري معاك الوريات سيار سرع اي طاري لعقت ونين كان مالنتي صوص بشي وصوص صار وصلت في صوص صار ايات ادق وحا صوص صار اساس سيار سنه كده
isagoo weliba isagu shaqaynayay sanadkii oo dhan qofkii uu shaqaynayay 8 saacadood. So that means lacagtaada the income in which Mr. A earns wuxuu ka badanayaa isagoo 24 hours shaqaynaya 9 sano kadib ayuu heli dhaqaalaha. The best thing you can do for the poor people is not to be one of them. waa fursada kaliya faa'iidada kaliya waxa kaliya u tari kartid masaakiinta waxa weeyaan inaanad ka mid noqonin oo tuugsiga aanad ku cululinin. That's the only thing aad qaban kartid ugu fiican, isn't it? Marka don't be one of the poor. Aan noqonin masaakiinta. So think wisely. Everything changes when you take full responsibility for your network marketing career. wax kasta waxay isbedelayaan maalinta aad mas'uuliyad buuxda ka qaadid shaqadaada ee aad adigu isdiyaarisid ee aad naftaada intaad go'aan ka qaadid shaqadaada mas'uuliyaddeeda saartid hadday waqtigeeda tahay hadday labiskeeda tahay hadday tiimkaaga tahay hadday tababarkaaga tahay hadday aqoontaada tahay hadday tahay xirfadaada shaqadaada maalinta aad mas'uuliyad iska saartid shaqadaada iyo ganacsigaaga ee aad aragtid inay shaqadaadii tahay ee aanu qofna kugu dhiirigelin adigu intaad qorshaysatid aad waqtigaaga iyo shaqadaada aad qabsatid waa maalintaas maalinta aad natiijada rasmiga helaysid maalinta ay shaqadaadu dhan isbedelayso maalinta aad dhaqaalaha u baahan tahay aad helaysid. The day you take full responsibility for your business, it is the day that everything is going to change. The day you take your time for training, the day you train yourself, the day you train your team, the day you invite every single day, the day you do the full responsibility of your business, the day you become serious, the day you become professional, the day you take your business as a serious business, that's when everything is going to change. Nobody can change your business. Only it's you who can make the result. Do you understand that, bro? So take full responsibility for your business, make it serious, and it will give you a serious result, and you will definitely change your life. Thank you for your listening. Thank you for your participation. Add one percent in listening. Inta kasoo qayb gashaan haddana hada xul ku wasita cafiisin haddii kale waa percentage jimcaha wanaagsan baad leeyahay waxaan ku soo dhaweynaya MC-ga waxaan ku soo dhaweynaya waqtiga isku